assalaamu calaykum daawadayaal ku soo dhowaada barnaamijkeenii xogta diblomaasi. daawadayaal, madaxweynaha dalka ruushka valadimir putin oo haatan ku sugan magaalada astaana ee dalka kasakhistan, halkaas uu kaga qaybgelayo kulan uga furmay dalladda dowladaha laysku yidhaahdo iskaashiga dowladaha madaxa bannaan, ayaa siiyey jawaabo ku filan dalal badan oo reer galbeed ah. waxa uu ka hadlay arrimo badan oo khuseeya dalka Ukraine iyo dagaalka ka socda. ugu horreynba, madaxweynaha dalka ruushka valadimir putin waxa uu meesha ka saaray in loo baahan yahay inuu xilligan la kulmo madaxweynaha dalka Maraykanka Joe Biden. waxa uu sheegay waqti xaadirkan kulan uu la kulmo madaxweynaha Maraykanka inaanu ahayn mid wax soo kordhinaya. toddobaadkii lasoo dhaafay ayaa wasiirka arrimaha dibadda ee dalka ruushka Sergey Lavrov sheegay inaanay dowladda ruushku ka soo horjeedin inay labada hogaamiye kulmaan bisha soo socota, xilligaasoo dalka Indunuusiya kaga qaybgelayaan shir uga furmaya 20 dal adduunka ugu tunka weyn. madaxweynaha ruushkuse goordhoweyd waxa uu sheegay inaan Joe Biden waxba soo kordhinayn. sidoo kale, madaxweynaha dalka ruushka valadimir putin waxa uu sheegay inaan loo baahnayn duqaymo siyaadaha oo dhanka cirka oo laga fuliyo gudaha dalka Ukraine. waxa uu sheegay 29 goobood oo lagu amray ciidamada cirka ruushka inay burburiyaan inaanay burburin 7 ka mid ah, balse sirdoonka dalka ruushka uu sheegay 7daasu inaanay wax ahmiyada lahayn. sidaa darteedna waxa uu sheegay inaanu maalinimada maanta amrin duqaymo dheeraad oo cirka ay ka geystaan ciidamadiisu. waxa uu sheegay kulan uu la qaatay golihiisa ammaanka qaran in la isku raacay 7da goobood inaanay ahayn kuwo wax ahmiyada saa u sii leh. mar uu u jawaabaya hadal ka soo yeeray dhiggiisa dalka Faransiiska Emmanuel Macron oo goordhoweyd ka hadlay xaaladdii ka taagnayd Nagorno-Karabakh oo isku hayeen dalalka Armenia iyo Azerbaijan, waxa uu sheegay madaxweynaha Faransiisku in dal walba dowladda ruushku ay faraha la gasho uu noqdo mid burbura, aanan ahayn dowlad ku wanaagsan inay dowladaha ka dhex samayso heshiis wax ku ool ah. valadimir putin oo ka jawaabaya hadalka madaxweynaha iskuma baahno howlina, waxa uu sheegay in hadallada uu maqlaya ay yihiin kuwii weligoodba ay ku caanka ahaayeen madaxda reer galbeedka ah, oo uu sheegay inay yihiin kuwo iyagu isu haysta in keligood ay wax walba garanayaan. waxa uu sheegay madaxweyne valadimir putin dalkiisu inuu u baahan yahay xiriir wanaagsan oo adag uu la yeesho dalalka ku yaalla Aasiya, gaar ahaan dalalka ku yaalla Aasiyada dhexe oo aynu wada ognahay dalalkaasu inay yihiin daawadayaal kuwa muslimiina, horena uga tirsanaa midowgii Sofiyeeti ee ruushku maamuli jiray. dowladahaas ayaa iyagu gebi ahaantoodba aan ka hor iman dowladda ruushka codbixintii maalinimadii shalay ka dhacday golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay, waana dhinaca keliya dowladda ruushku ay nabadgelyo buuxda ka haysato, aanan weligeed ka baqin in laga soo weeraro. halka bariga Yurub maalinba maalinta ka dambaysa dowladaha reer galbeedka ay dalalka yaryarka oo ku yaalay ku darayeen gaashaanbuurta NATO iyo midowda Yurub. haatanna waxa uu sheegay dowladda ruushku inay sii labalaabayso xiriirka waxwada qabsi ay la wadaagto dalalka. dhanka kale, madaxweynaha dalka Turkiga Rajab Tayyip Erdogan ayaa kulankaa ku sugan, waxaana ay labada hogaamiye ka wada hadlayaan qorshe dhowaantan uu soo jeediyey madaxweyne valadimir putin oo ah in dowladda Turkigu ay noqoto ta keliya ka iibisa gaaska ruushka dalalka midowda Yurub ee u baahan. warbaahinta reer galbeedku waxay sheegaysaa madaxweynaha Turkigu arrinta inaanu ogolaan weli, balse wakaaladda wararka ee dalka ruushka taas waxaa lagu soo qoray in madaxweyne Erdogan uu si kala yaalaaba u soo dhoweeyey soo jeedinta madaxweyne valadimir putin. heshiiskan ayaa la filayaa goordhow in la saxiixo. haddiiba la saxiixona waxa uu noqonayaa mid ay dan weyni ugu jirto labada dowladood ee ruushka iyo Turkiga. weliba waqti xaadirkan waxa uu si weyn u sii caawinayaa dowladda Turkiga oo ku jirta iyadoo indhowaalaba isbeddel siyaasadeeda arrimaha dibadda ah, waxayna u noqonaysaa buundo wanaagsan oo Erdogan dib loogu soo dooran karo sanadka soo socda markii looga dareero Turkiga doorashada madaxtinimo. dhanka dalka Talyaaniga, guddoomiyaha baarlamaanka waxaa maalinimadii maanta ahayd loo doortay ninka lagu magacaabo Lorenzo Fontana, oo isagoo ah nin garabka midig ka tirsan, gaar ahaan xisbiga la yidhaahdo Liga Nord. ninkan ayaa waxa uu yahay taageero aan isqarin oo taageera madaxweynaha dalka ruushka valadimir putin iyo siyaasaddiisa. horeba dowladaha midowda Yurub oo uga dayriyeen doorashadii ka dhacday dhowaantan Talyaaniga inay noqonayso tii ugu xumayda sanadka ka dhacda Yurub, waxaana dowladda Maraykanku xilli sii horreeyey sheegtay in dalka ay ka soo baxayso dowlad la mid ah faashiistihii dalka Talyaaniga hore u haysan jiray Benito Mussolini.
balse waxaynu ku naqaanaa daawadayaal dowladaha reer galbeedka inay dhaleecayaan wax walba oo iyaga aanay dani ugu jirin, dadyowga kalena aanayba u oggolayn inay doortaan waxay rabaan kuna biiraan garabka ay doonayaan. sidoo kale intii uu ka hadlayay madaxweynaha dalka ruushka valadimir putin kulankaa astaana waxa uu sheegay inaanay marnabo ku jirin qorshaha dowladda ruushka inay gebi ahaanba meesha ka saarto burburisana dalka loo yaqaano Ukraine, balse Ukrainiyiintu ay yihiin kuwa iyagu doortay dhibaatadan markeedii horena ahaa sababta ay u bilaabatay. mar warbaahintu weydiisay madaxweyne valadimir putin inuu ka qoomameynayo falkii uu ugu diray ciidamadiisa gudaha dalka Ukraine, waxa uu sheegay 100% inaanu ka qoomameynayn, go-aankiisuna uu ahaa mid saxan, had iyo gooralana isaga laga sugayo inuu difaaco dowladda iyo dadka ruushka ah. go-aan walba uu qaataana uu ku salaysan yahay badbaadinta dadkiisa. ugu dambeyn daawadayaal, madaxweynaha dalka Belarus Alexander Lukashenko waxa uu sheegay in dowladaha reer galbeedka ah cadaadiska ay cadaadinayaan dowladda ruushka ugu dambeyn ay ku sababayso in madaxweyne valadimir putin uu hubkiisa waxgumaadeen nukliyerka faraha ka qaado. waxa uu sheegay arrintaasu inay noqonayso miduu 100% putin ku saxnaan doono maadaama reer galbeedku ay isugu tageen dalkiisa. waxa uu sheegay dowlado yaryar oo ku yaalla qaaradda Yurub iyo kuwa aan ku olayn oo aanay wax danaba kala gelin weligood dowladda ruushku inay haatan u hoggaansamayaan awaamiirta Maraykanka iyo reer galbeedka oo ay dalka colaadinayaan. waxa uu sheegay ruush nacaybku inuu faraha ka baxay dalalkii ay ku noolaayeen dadka ruushkaana haatan lagu colaadinayo, isagoo soo qaatay dalalka ku yaalla Baltiga ee Latvia, Estonia iyo Lithuania. ugu dambeynna waxa uu sheegay ruush nacaybkaas inuu qaaradda Yurub dhibaato weyn u geysan doono. intii uu warbaahinta la hadlayay madaxweynaha Belarus ma aanu siin wax talaha dowladaha reer galbeedka, waxaase uu ugu hanjabay inay cawaaqib xumo kala kulmi doonaan falalkooda guracan. fadlan muuqaalka la gareeya, sheer gareeya oo la wadaaga asxaabtiina, marnaba ha ilaawin leegtaadu iyo sheertaadu inay noo tahay hadiyad qaaliya iyo dhiirigelin adiga kaa timid. sidoo kalena waxay xoojinaysaa muuqaalkan. ku xirnaada kanaalka. mahadsanidin.